waxa soo dhamaaday wareegii koobaad tartanka xisaab badan ee koobka adduunka si maamuus habsami leh uga socdo dalkan Arbeed ee Qatar ahna dalkii ugu horeeyay Islaam oo martigeliya koobkan 12 xul qaran ku tartamayaan haddaba haddii ilaa Khamiistii sidii loo ciyaaray ayaynu ku eegi doonaa warbixintan aan ku bilownay xulka Ecuador ayaa 2-0 uga soo badiyay xulka Qatar halka xulka Netherlands uu 2-0 uga soo badiyay xulka Senegal waxaanay ka wada tirsan yihiin group A xulka England wuxuu 6-2 uga soo badiyay xulka Iran dhanka kale xulalka Mareykanka iyo Wales ayaa wada galay barbara 1-1 waxaanay ka wada tirsan yihiin group B xulka Sacuudiga oo 2-1 uga soo badiyay xulka Argentina halka xulalka Mexico iyo Poland ay wada galeen barbara 0-0 waxaanay ka wada tirsan yihiin group C xulalka Denmark iyo Tunisia ayaa wada galay barbara 0-0 balse xulka Faransiisku wuxuu 4-1 uga soo badiyay xulka Australia waxaanay ka wada tirsan yihiin group D xulka Japan ayaa 2-1 uga soo badiyay xulka Jarmalka dhankaas iyo xulka Spain waxa uu 7-0 uga soo badiyay xulka Costa Rica kana wada tirsan group E xulalka Morocco iyo Croatia oo wada galay barbara 0-0 halka xulka Belgium uu 1-0 uga soo badiyay xulka Canada iyagoo ka wada tirsan group F xulalka Uruguay iyo Kuuriyada Koonfureed waxay wada galeen barbara 0-0 halka xulka Portugal uu 3-2 uga soo badiyay xulka Ghana waxayna ka wada tirsan yihiin group H xulka Switzerland ayaa 1-0 uga soo badiyay xulka Cameroon iyadoo xulka Brazil uu 2-0 uga soo badiyay xulka Serbia waxayna ka wada tirsan yihiin group G ugu dambeyntii wareegan koobaad ee soo idlaaday waxaa lagu soo dhaliyay 41 gool waxaana goolka soo taabtay 18 xul qaran halka aanay shabaqa soo taaban ama gool dhalinin 14 xul qaran oo kala ah Qatar, Senegal, Mexico, Poland, Denmark, Tunisia, Costa Rica, Morocco, Croatia, Canada, Uruguay, Kuuriyada Koonfureed, Cameroon iyo dalka Serbia.